munaasabadan oo lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha cusub ee gobolka Mudug ee dhawaan uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa lagu qabtay degmada Galinsoor ee gobolka Galgaduud. Munaasabadan ayaa waxaa soo abaabulay maamulka degmada Galinsoor iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi, waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug. Gudoomiyaha degmada Galinsoor Xirsi Muuse oo munaasabada furay ayaa soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee gobolka Mudug Mudane Axmed Xuseen Shire Buqaari oo shalay uu magacaabay madaxweynaha Galmudug. waxaan rabaa halkaan inaan uga hambalyeeyo gudoomiyaha cusub ee gobolka Mudug Mr. Axmed mudane gudoomiye soo dhawow. meeshaan waa dalkaagii iyo dadkaagii gacmo furan ku soo dhawow. waa Galinsoor xilka lagu magacaabayna Ilaahay ha kula garab galo, waana xilkii aad ugu adeegi lahayd dadkaaga iyo dalkaaga iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed aad ugu adeegi lahayd. qaar ka tirsan bulshada degmada Galinsoor ayaa dambaal hambalyaha u diray gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay gobolka Mudug. gudoomiyaha gobolka oo cusub oo gobolka Mudug ah waxaan leenahay mudane soo dhawow. waa gobolkaagii, waa dadkaagii, mana ahan inaan Mudug kaliya u tahay Galmudug oo dhan baa u tahay gudoomiye. xildhibaanaduna Galmudug oo dhan bay xildhibaan u yihiin, annaga kaliya nooma ahan. sidaas hal la ogaado, sharafta iyo karaamada aan kugu soo dhaweynay Soomaaliya oo dhan u adeegtaan asanaynaa insha Allah taala. markaan u soo laabto xildhibaano kaliya kuma shaqeeyaan, waxay ku shaqeeyaan qaab nabadoonnimo, qaab waaye aragnimo oo waliba waxaan leedahay xildhibaano waa ka badan yihiin. gudoomiyaha gobolka Mudug in uu degmada calaalan oo ku calaalan Galgaduud xuquuq ahaana aysan si saxan aysan kaga helin, ama waxbarasho ha ahaato, ama kaabayaasha dhaqaalaha ha ahaato, ama caafimaad iyo biyo intaba ha ahaatee, in sidii gobolka Mudug uu ugu dari lahaa degmadan uu ka shaqeeyo, maadaama dadkeeduna uu u safro gobolka Mudug xuquuq ahaana la yiraahdo xagga dambe iyo waxay jirtaa Galgaduud oo aysan iskeenayn oo deegaankan uu noqday no man's land. gudoomiyaha cusub hambalyaan ku leeyahay ilaahay xilka kula garab galo, ilaahay xilka kugu asturo. waxaan rabnaa inaan hore ummadana hogaansiin. waxaan leeyahay hambalyo baahina loo qabay xilliga ku soo aaday gudoomiyaha waxaan ku leeyahay xilli loo baahnaa ayaa ku soo aaday gobolka Mudug. caqabadaha jira iyo xaaladaha jirana laga sheekeynin oo nin gobolka u dhashay xogogaal ah baa ahayd. annaga ururka suxufiyiinta haddaan nahay waan ku soo dhaweynaynaa, waan kula shaqeynaynaa. marka hore soo dhawow, marka dambana soo dhawow, haddana soo dhawow. meeshaan waa meeshaadii, waa deegaankaagii. Galinsoor waa u baahan yahay nin u dhashay oo u soo baxa. wax badan baan waxaan soo dhaweynay. aad baan kuugu hambalyaynaynaa. maanta waa maalin duco, waa kuu ducaynaynaa Ilaahay inuu kula garab galo xilka weyn ee lagu magacaabay ee gobolka Mudug oo hadda aad joogtid horaantii degmada Galinsoor oo ka tirsan Galgaduud. Maxamed Calool Geel iyo Maxamuud Diine oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa tilmaamay siday muhiimka u ahayd in isbedel maamul uu ka dhaco gobolka Mudug. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa xafladan maanta lagu soo dhaweynayo gudoomiyaha gobolka Mudug Axmed Xuseen Shire, dadkii soo abaabulay iyo degmada Galinsoor aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor oo soo magacaabay gudoomiyaha gobolka Mudug. annagu waxaan ahayn raggii la socday gudoomiyaha sida sharafta leh ee karaamada leh ee mas'uuliyadda leh oo reer Galinsoor noo soo dhaweeyeen mar labaad iyo mar saddexaad waan kaga mahadcelinaynaa. waxaan rabnaa inaan idiin sheegno Axmed Buqaari wax badan baa laga soo maray, waa loo fakeray, waa la dardaarmaynaa. Axmed Buqaari waxaan leenahay waxaad mas'uul ka tahay reer Galmudug dhammaantood ayaad gobolka Mudug mas'uul uga tahay. soo dhaweyntaasina waxay ku saabsanayd inaan soo dhaweyno gudoomiyaha gobolka Mudug. ninka maadaama uu dhashay gudoomiyuhu meesha mise mas'uuliyadiisu waxa weeye gobolka Mudug weey. annaga lafteedu Mudugna waa nahay, Galgaduudna waa nahay, labadan Ilaahay baa naga dhigay. sida uu sheegay doctorkuna waxa weeye waa xaqiiq dadka meel kasta dadka jooga
ayaa noolaysta. Axmed Xuseen Shire Buqaari gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay gobolka Mudug ayaa mahadcelin kadib la dardaarmay bulshada degmada Galinsoor inay ka shaqeeyaan amniga iyo wada deganaanshaha bulshada. dhammaantiin saawdatihiin waa inay mahadcelinayaa mahadda koowaad ilaahay iskale midda labaadna waxaan leeyahay dadkii xafladda quruxda badan soo abaabulay sida qiimaha leh oo sharafta noo soo dhaweeyay dhammaantiin waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan rabaa inaan ku dardaarmo bulshada reer Galinsoor waxa weeye sida odayaashii hore u sheegeenba qolo walba ayadu sida ay isku abaabusho sida ayadu waxa u dadaasho sida ayadu waxa weeye ay u hawlgasho ayaa sawirkooda ekaanaya. Annaga reer Galinsoor waxaa laga rabaa inaan horta koow maamulka ila garab istaago dawladda in la shaqeeyo waan ku faraxsanahay waa la shaqeyseen waa ogahay marqaati baan ka ahay halkaan waxay ahayd meeshii madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Xaaji Qorqor meeshii waxay ahayd sida fiican oo ugu wanaagsan lagu soo dhaweeyay furaha fartumadana u noqotay kabacdina waxa weeye uu mataqaanaa sii gudbay oo sawir fiican oo qurux badan bilowday. waxaan rajaynayaa hore inaan u sii wadno waxaan rajaynayaa laftirkiinu inaad dadaashaan oo waxa weeye idinku aad hal abuuro badan aad bilowdaan anaguna waan ku garab taaganahay. waxaan ogahay inay jiraan yacni culaabo badan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan baryaynaa culaabahaas naga dulqaado. waxa aan u baahannahay waxa weeye waa amni iyo midnimo haddii la helana wax badan oo isbeddel ah imaanaya. waxaan idinka codsanayaa qof yar iyo qof weyn inaan nabadda garab istaagno maamulka lala shaqeeyo aniga ay la shaqaysaan gudoomiyaha degmada iyo dadka kale oo yacni waxa weeye dawladda laamaheeda kala duwan aad la shaqaysaan. Saadiq Siciid Nuur raadiyaha iyo telefishinka Galmudug degmada Galinsoor.